arrintanit oo passive income-ka runtu arrin aad muhiim ah. Marka siyaabooyin badanna way jirtaa oo passive income ah oo ka faa'iideysan kartid. Oo ugu horeyso staking-ka. Staking-ka waxa waaye waa coin-kaaga inaad meel aad ku xirtid oo sidoo kalena aad ka qayb qaadatid inaad secure gareysid ama amniga aad sugtid networkiga oo blockchain-ka. Kadibna lagugu siinayo abaalmarin. Abaalmarintaasi oo ah coin-an. Tusaale ahaan waxaa staking aad ku samaysay coin-ka Solana. Waxaa ka qayb qaadatay inaad amniga aad sugtid networkiga Solana. Waxay abaalmarin kuu siinaysaa marka coin-ka Solana iyadoo la fiirinayo APY-ga ama percentage oo lagu siinayo sanadkii. Tusaale ahaan 4%, 7%, 10% hadba coin-ka ayuu ku xiran yahay. Kadibna waxa waaye percentage-kaasi ayaa lagu siinaa. Percentage-kaasi marka muxuu u dhigmaa wax maalinle la siinayo mise bille mise weekly mise sanadkii. Percentage waxa waaye sanadkii waaye. Tusaale ahaan haddii lacagta stable coin ay tahay oo meel aad ku xirtay oo 4% lagugu siinayo sanadkii dhan waxaa helaysaa $4. Sababta percentage-ka ayaa ah 4%. Hadday tahay coin-ka caadiga ah waa wax isbedbedelayo. Waxay ku xiran tahay marka coin-ka iyo dhaqaaqa uu sameynayo. Sidoo kalena abaalmarinta waxa waaye kuwa qaarkood waxay ku siinayaan daqiiqo, kuwa qaarkood maalmooyin, kuwa qaarkood 2 maalmood, 3 maalmood ayaa lagu siinaa. Kuwa qaarkood weekly waaye, isbuuc ahaan lagu siinaa abaalmarinta. Ma wax sanadka hal mar lagu siinayo, waa wax si joogto ah u helaysid. Marka sidaas awgeed waxaa lagu dhahay inuu yahay passive income waaye. Leanna wax oo physique ah ma qabanaysid. Adigoo iska jiifto ayaa coin-ka staking kugu jiro lacag kuu soo gelinayo. Waa dakhli oo kuu soo galayo adigoo jiiftid oo wax dhan aan qabanaynin. Sidoo kalena waxaa jirto inaad LP provider noqotid ama liquidity provider oo ah 2 coin oo lamaana ah zooj aad provide gareysid. Tusaale ahaan coin-ka USDC ama USDT iyo zoojka Ethereum camal. Marka dhanka DeFi waa badnaan labadaas coin ayaa meesha dhigaysaa. Waxaa marka abaalmarin ahaan lagugu siinaa gas fee-ga oo meeshaasiti ka soo baxayo percentage ayaa ka soo gaarayo. Lacagtaada waa haysataa. Sidoo kale waxaa meeshaasiti kaaga soo galayo dakhli oo dheeraad ah adigoon wax dhan aad qabanin. Kaasna waxa waaye waa passive income. Sidoo kale waxaa jirto dhanka depend asigana waxa waaye narrative kale waaye oo kuu samaxayo inaad heshid passive income si waxyaabaha oo physicalka adiga aad haystid camal ama device aad soo gadanaysid sida Helium camal network aad provide gareynaysid. Hal mar aad soo gadanay waxaad install gareynaysaa. Kadibna waxa waaye passive income ayaa helaysaa. Abaalmarintan waxay kugu siinayaan coin-kood ayaa lagugu siinaa sida GPU-ga camal, sida cloud storage-ka camal. Haddii laptop aad haysid ama storage fiican aad haysid waxa waaye waxa dadaas siin kartaa ijaaraysaa. Dad kale marka lacag ayay kugu siinayaan. Sidoo kalena mining-ka qaab un shabaha waxa waaye adiga oo passive income ah sida Bitcoin mining camal inaad qalab iyo waxa soo gadatid. Sidoo kalena aad mining gareysid pool ayaa ka qayb qaadanaysaa. Dad badan ayaa ku jiro pool-kaasiti. Markii aad ku guuleystid inaad block ah xalisid oo block aad ku dartid waxaa lagu siinaa marka abaalmarin oo ah fee-ga iyo block cusub coin-ka ku jiro. Hadda BTC waxa waaye 3 dhibac waxa la jiro ayaa helaysaa oo BTC ah. Inta qofood oo pool-kaasiti ku jiro ayaa marka loo kala qaybinaa hadba awoodda oo hash rate-ka aad contribute gareysay. Sidoo kalena asiga waxa waaye xoogo maintain ayuu ka rabaa inaad maintain gareysid. Laakiin shabaha oo passive income waaye. Adigoon wax culays ah qaadin, adigoon shaqo dheeraad ah qabanin ayaa dakhli ka soo galaya dhankaasiti. Waxyaabo kale waxaa jirto asigana oo DeFi-ga ah sida in aad lending iyo borrowing aad ka qayb qaadatid. Dabcan diini ahaan ma fiicna. Waxyaabo badan waxaa jirto oo passive income ah laakiin diiniin ahaan waxa waaye shariica compliant ma aha oo sharciga Islaamka ma qabto. Waa xaaraan waaye. Laakiin way jiraan qaabab oo passive income lagu helo sida inaad lacag aad deymisid camal oo interest aad saaratid
lacagtaasi waxa waaye faa'iido ayaa kaga soo galayso interest waaye laakiin xaaraan waaye sidoo kalena inaad adiga lacag adeensatid oo aad sidoo kale lacag lagu saarto kaasna waxa waaye dhanka DeFi waaye asigana waxa waaye passive income camal waaye lacagtaada deeminaysaa sida RWA camal kuwan qaarkood waxyaabo qaarkood xaraamaa jiro laakiin passive income waaye meesha adduunka caadiga camal hadda bangiyada camal faa'iido ay ku siinayaan DeFi sidoo kale way jirtaa in percentage lagu siiyo interest la saaranayo waxyaabo saas ah asigana waxa waa qaab oo passive income ah marka qaababka badan yihiin laakiin intaas ayaa ugu muhiimsan waa qaababka oo suuqaaniti lacag loogu sameeyo sidoo kale waxaa jirto sida hyper ama honey mid kale ay dhahaan oo ah mapping mar walba gaari aad wadatid oo aad socotid camera ayaa ku xiranaysaa mapping ayaa sameynaysaa jidadka ayaa sawiraysaa kadib waxa waaye passive income waa lacag ayaa lagu siinaa mar walba gaarigaad isticmaashid oo cameradaas ay kugu xiran tahay meeshaas waxa waaye dakhli ayaa kaa soo geli karo sidoo kale waxaa jiro NFT yaal oo royalty kaaga soo galay mar walba qof iibsado oo passive income ah adigoo waxaad qabanin qofkaasi waxa waaye hadduu qof kale kasii gado adiga meeshaas waxa kaaga soo gaarayo revenue ayaa kaa soo gaaraya ama dakhli ayaa ka helaysaa marka intaas ayaa kusoo koobaa